السلام عليكم أخيارتك وصور هذا Somali Business Dad Info maanta waxaan ka hadlaynaa xirfad oo aad iyo aad muhiim u ah oo dadka internetka ka shaqeyn karaan xirfadan waxaa la dhahaa landing page iyo faa'iidada leedahay ayaan ka hadlaynaa inta marka daawada muuqaalkan website wuxuu ka kooban yahay bogooyin badan ayuu ka kooban yahay waxaa ku qoran macluumaad information badan laakiin landing page wuu yar yahay informationkiisana aada u yar yahay ma badna waa hal page waa hal bog kaliya marka haddaa google aadno google aa weydiineynaa waxaan dhahaynaa google what is landing page Google wuxuu leeyahay in online marketing a landing page sometimes known as lead capture page static page or destination page is a single web page that appears in response to clicking research engine optimized search engine marketing promotion marketing email marka Google wuxuu leeyahay landing page waxa waaye ayaa magacooyin kale uu leeyahay sida waxaa la dhahaa lead capture soo ma jeedid lead capture waa la dhahaa static page waa la dhahaa destination waa la dhahaa destination page iyo waxaa la dhahaa squeeze pagena waa la dhahaa marka waxa waaye marka adiga wax xayeysiinaysid sida affiliate program oo kale affiliate marketing markaa leedahay oo wax xayeysiinaysid dadka URL waa ka hadalnay soo ma ahan marka affiliate program oo samaysatid waxay ku siinayaan linkigaas URL aa la dhahaa linkigaas adiguu khaas ku yahay marka dadka markay ku dhuftaan waxaad geenaysaa landing page ayaa geenaysaa landing page kadib waxa waaye waxaa laga rabaa adiga dadka oo ku imaadaan landing page emailkoodii in aad ka qaadatid oo meel dhigatid maxaa yeelay emailka markaa aruurisid oo ku bataan oo naqdaan 100 email 200 email 500 email halahaanoo dad dhan ah macnaha waxa waaye waxay u baahan yihiin waxay interest ku leeyihiin waxa adiga haysatid ay interest ku leeyihiin xayeysiinta ayay arkeen kadib waxay ku dhufteen xayeysiinta landing page ay aadeen sababta xayeysiinta ku dhufteen maxaa waaye macnaha waxa adiga oo tustay ayay ka heleen interest ay ku leeyihiin waa cajibiyey marka emailka aruurisid kadib macnaha affiliate marketing waa sii suubinaya mogtaa waa howl socda affiliate marketing waa sii suubinaysaa marka affiliate marketing cusub oo macnaha wax qiimo leh oo dadka anfacayo hadduu soo baxo emailahana aruurisay dhan ayaa u diraysaa 500 email 1000 email 5000 email hal jeer ayaa diri kartaa waan i tusayaa marka website-kan Mailchimp la dhaho website-aa badan yihiin Mailchimp ayaa jiraan GetResponse aa jiraan Aweber waa jiraan program software yaashaan dhan waxa waaye email uu aruurinayaa emailaha markuu aruuriyo haddaa rabtid dadka xayeysiinaya waxaas ilaa uu dirtid emailahana uu diraysaa marka waxaad diri kartaa email badan hal jeer aad diri kartaa marka waxaan ka bilaabeynaa landing page ayaa ka bilaabeynaa landing page way kala yihiin waxaa jira mid oo bilaash ah free ah way jiraan sida Mailchimp oo kale landing page way leeyihiin waa isticmaali kartaa hadda ka hor ka hadalnay cashirka lasoo dhaafay ka hadalnay website-kan la dhaho wix.com way leeyihiin soo ma jeedi free landing page way leeyihiin marka haddaa rabtid wax oo bilaash ilaa isticmaashid waa isticmaali kartaa waa samaysan kartaa aniga waxaa jeclaa ilaa isticmaalo program la dhaho Elementor waa macnaha waad gadanaysaa waa program oo la gato laakiin landing pagegiisa aad iyo aad u fiican yahay kaasaa jeclaa aniga marka waxaan galaynaa WordPress ayaan galaynaa WordPress markaa galno waxaan leenahay halkaan aadaynaa pages waxaan leenahay add new page marka aniga waxaan rabnaa kan ilaa ka dhigno
Elementor, Canva. macnaa waqti badanaa sheegay aqoonsiga waa muhiim. aqoonsiga iyo lacagta aqoonsiga ka qiimo badan. marka qofka waa loo isbaraa sida website-daha loo sameeyo, programmaha website-daha loo isticmaalo oo qofka isku faa'iideeyo aad u muhiim u yahay. marka kan waxaa leenahay landing page aa leenahay. kadib waxaa leenahay edit with Elementor. marka cashirka soo socda waxaa ka hadlaynaa web design, sida website-ka loo sameeyo ayaa ka hadlaynaa. marka cashirkaas ayaa micnaha soo fiican u taataabaneynaa Elementor wuxuu yahay iyo WordPress wuxuu yahay iyo applicationaha isticmaali lahayd, WordPress-ka isticmaali lahayd. meeshaa soo fiican ayaa ugu taataabaneynaa. marka waa kana landing page-ka. marka waa eberkan hadda soo jeedin eber weeyaan, information kuma jira, wax ma ku jiraan. marka waa dhisaysa, adaa dhisayo. halkana ku dhufanaysaa, waxaad aadaysaa pages. kuwaanoo dhan ayaa geli kartaa, kuwaanoo dhan ayaa geli kartaa. kuwaan waxa waa landing page, ayagaa kuu toosiyey, ayagaa kuu suubiyey, waa diyaar. soo ma jeedi landing page ya, soo ma jeedi diyaar weeyaan kan. marka kii diyaarka ah already ku ah kaas ilaa isticmaalaa Neuron, kaasaa fudud. kuwaan dhan isticmaali karnaa. marka hal xabo haddaad doorsano, okay, kanaan ku dhufaneynaa, kanaan gelinaynaa. marka insert aan leenahay. marka wuu soo socdaa. marka hadda sawirkaana waa ka yaacinaynaa meesha. kan waa ka yaacinaynaa, delete aan leenahay. marka halkaa waxay rabtaa ku qoraysaa, waxaa ku qoraynaa marka anaka stay healthy, enter your email below to learn more. marka anaka kana badilayna hadda telefonkoodi ma rabno, maxaa yeelay casrigan lagu jiro ya, waqtigan lagu jiro dadka macnaa waxaa u baahana emailkooda kaliya, kaasa u baahanahay. adresskoodi, ciwaankoodii uma baahno, telefonkoodii uma baahno. emailka ugu muhiimsan iyo magacood. marka telefonka ka bixinaynaa. inta markaa ku dhufano halkan phone number soo ma jeedid x leedahay, wuu ka baxayaa. macnaa wadankuu joogo ma baahni, waa ka bixinaynaa. persons waa ka bixinaynaa. taariikhda waa ka bixinaynaa. message waan ka bixinaynaa. mujeeda labadaan u baahanahay. that's it. waxaan o dhan hoos ku qoran waa ka bixi karnaa. kan waa ka bixinaynaa. maxaa yeelay la soco ulajeedada landing page waa maxay? ulajeedada landing page waxa waaye macnaha information yar inuu ku qornaado, waa information badan inuu ku qornaado ma ahan. waxaan dhan dadka haddaa ka babadino, dadka way ku jahwareerayaan. marka dadka way ku jahwareerayaan, way yaacayaan. marka kan waan ka bixinaynaa. delete ay leenahay. waa kaasa, waa kana landing page saana lagu rabaa, wax saan oo kale ah. soo ma jeedid stay healthy, enter your email below to learn more. marka emailkooda gelinayaan iyo magacood. marka intaa toosinaynaa. marka emailka markay geliyaan xagee u aada emailka ya, emailka xaguu aadaya, waxaasaa gelinaynaa. marka soo ma jeedid kadib inta waxaa gelinaysaa API wax la dhaho. waxaad aadaysaa korkaana aadaysaa profile aa leedahay, extras aa leedahay, API keys. soo ma jeedid API key kanaa gelinaya. marka intaa gelinaysaa. marka inta gelisid waxaan dhanaa kuu soo baxaya.
magacooyinkan ana ku soo baxaya marka soo mujeedid magacooyinkan ana ku soo baxaya midda ka dooranaya marka kii adiga rabti oo adiga sameysay healthy food ka dooranay waa kaasa marka healthy food marka ka dooratid publish ayaa leedahay ya publish ayaa leedahay way ku dhamaatay waa kaasa way dhamaatay inta daa ka baxno exit to dashboard to preview adhena marka waa kana dadka kana arkayaan soo mujeedid landing page waa kana landing page sameynay sana sida landing page loo sameeyaa marka la socda qofka waa inuu dadaalaa haduu rabo horumar inuu gaaro waxa waa aqoonsiga cilmiga aniga niisiinayo waxa waaye cilmi dheeraad waa ila raadsataa aniga hadda kale maxaan tusay landing page sida loo sameeyaa tusay mogtahay aniga waxaan tusay hal nooc waxaa jiraan kun noocood halahaasoo boqolaal oo nooc ayaa jira sida landing page loo sameeyo haddaad garanaysid sida landing page loo sameeyo yaa waxaad ka shaqaysi kartaa Fiverr soo mujeedid Fiverr shaqaysanaysaa inta ku dhufanaysaa become seller aa leedahay agaa buuxinaysaa markaa buuxisid qof kale hadduu rabo loo sameeyo landing page adaa u samey kartid yaa waxaad ka qaadi kartaa $5 bilowgii marka macaamil badan yeeshatid customer badan markaa yeeshatid yaa oo macnaha soo mujeeda kan oo kale dadkan kan wuxuu leeyahay 65 customer kan wuxuu leeyahay 97 12 way kala yihiin soo mujeedid kan 107 customer leeyahay customeraha macaamisha markay bataan yaa kadib lacagta waa badan kartaa $5 waxaa ka dhigaysaa $10 $20 $30 laakiin la soco $5 waa halkii qof waxaa laga yaabaa 100 qofood aa laga yaabaa ya 100 qofood aa laga yaabaa ku dhahan landing page ii sameey ya marka halkii qofood haddaad ka qaadatid $5 100 qofood hadday ku imaadaan waa $500 $500 weeyaan ya $500 helaysa accountiga ku soo dhacayo waa faa'iido soo ma ahan waa faa'iido marka dadaalka ay ku xiran tahay leesinimada iska daay caajisnimada iska daaya macnaa isku faa'iideeya adiga ruuxa isku faa'iideey dadka kale u faa'iideey waa kaasa ha iloobina hoos waxaa ku dhufataan subscribe ku dhufta ya subscribe saara gambaleelahana ku dhufta waxay cusub oo faa'iido ah wayna imaanayaan markaan muuqaal cusub soo geliyo muuqaalkaas isku markii waa ogaanaysaa waad ka faa'iideysanaysaa ruuxaaga uu faa'iideysanaysaa cilmi ayaa yeeshanaysaa aqoonkaaga ayaa badsanaysaa marka khayr badan ayaan rajeynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh iyo ramadaan kariim